marka ay cimiladu isku beddesho cimilo roobaad cirkuna uu hareeyo daruuro jawiguna uu noqdo mid aad u qurux badan dhibcaha u horeeya ee roobka marka ay soo gaaraan dhulka waxa aan dareennaa caraf heerkeeda aad u sareeya caraftaasi waxa loo yaqaanaa saxansaxo sida aan ognahay roobka waa biyuhuna wax carafa ma leh su'aasha isweydiinta mudan ee aan mowduuceenan kaga jawaabi doonaana waa halkay ka timaadaa caraftaasi saxansaxada carafta roobka kama timaado neecaw ka dhalata roobka balse waxa ay ka timaadaa dhirta muddo iyada oo qalalan kadib uu roob ku da'ay cilmi baarisyo la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday inay carafta wanaagsan ay ka qayb qaataan bakteeriyada dhirta iftiinka hillaaca xilliga uu roobku da'ayo caraftaasina waxaa loo yaqaanaa patricia oo micnaheedu yahay caraf ka dhalata dhirta muddo iyada oo qalalan marka ay roob hesho ciidda carafta ka soo kacaysa ee aad dareemayso marka uu roobku da'ayo waa maado ka dhalata bakteeriya noocyo kala duwan oo roobka dhulka ama dhirta qalalan ku da'ay ka abuuranta maado la dhaho jasmine ayaa waxaa ka abuurma bakteeriyada loo yaqaano streptomyces waxayna bakteeriyadaas kasii abuurantaa ciid kasta oo caafimaad qabta bakteeriyadan sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo daawooyinka ka hortaga bakteeriyooyinka kale ee caafimaadka noolaha waxyeeleeya dhibicda roobka ee dhulka kusoo dhacda waxa ay sababaysaa bakteeriyada jasmine inay hawada ku milanto taasoo keenaysa inay hawada kusii jirto inta uu roobku da'ayo dareenka carafta saxansaxada keliya kuma eka bani'aadamka xayawaanaadka qaar ayaa dareema carafta wanaagsan ee kasoo baxda dhirta balse waxaa ka dareemid og bani'aadamka inta badan kiimikada dhirta kasoo baxdo ama ay sii dayso waxa ay la mid tahay dufta caleemaha qoyan ay sii daayaan xilliga uu roobku da'ayo sidoo kale dhirtan qalalan marka uu roob ku da'o waxa ay soo saaraan carafta taa la mid ah oo weliba aad u udgoon sidoo kale dhirta qalalan marka uu roob ku da'o waxa ay soo saaraan caraftaa la mid ah oo weliba aad uga udgoon xilliga cimiladu tahay mid qalalan geeduhu waxa ay keedsadaan wax kasta oo ay sii dayn lahaayeen marka uu roobku da'ana waxay sii deeyaan caraftaa udgoon oo weliba aad loo soo cusboonaysiiyey sidoo kale hillaaca xilliga roobku da'ayo dhaca qayb ayuu ku leeyahay inay abuuranto hawo nadiif ah oo aad u habboon iftiinka hillaaca ka soo baxaya waxa ay cusboonaysiisaa cimilada oo dhan hillaaca iftiinka ka baxaya duufaanta roobabka wadata iyo gaar ahaan roobabkaba waxa ay sare u qaadaan tayada hawada boorka busta iyo waxyaabaha kale ee arrimahaasi sababayna waxa ay nadiifiyaan hawada daawade bal aan ku weydiiyey su-aasha maanta adigan hadda daawanaya muuqaalka maxaad ka aaminsaneed caraftaasi saxansaxada ma inay roobka la socotaa mase in roobka imaashiyihiisa ay sababto ama bakteeriyooyinka hadda aan soo sheegnay inay ka dhashaan waan kaaga mahadcelinaynaa daawashada muuqaalka haddii aad ku cusub tahay janaalka fadlan nagu soo biir oo subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaal kasta ee aan soo gelinno haddii aad horey u saartayna waan kaaga mahadcelinaynaa dhiirigelintaada mahadsanid